waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta ku xiran janalka mar kale soo dhawaada aad iyo aad waa mahadsantihiin. Muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinkula wadaago wasaaradda cadaaladda Mareykanka oo ku dhawaaqday in ay dhalashada Mareykanka kala laabanayso 17 qof oo nin Soomaali ah uu ku jiro. Haddaba ninkaasi maxaa lagu haystaa? Waxyaabaha dhalashada in lagala laabto uu ku mutaystay maxay tahay? sidoo kalena ma ku lug leeyahay dambiyadii musuqmaasuqa ee gobolka Minnesota muddooyinkii ugu dambeeyay lagu haystay? muxuu yahay musuqmaasuqa haddii uu ku lug leeyahayna lagu eedeynayana waan idinla wadaagaya. sidoo kale madaxweyne Trump oo maanta soo qoray in Iran ay marinka Hormuz ku soo riday diyaarad nooca horumarsan ee helicopteriska oo gantaaladu ay ku xiran yihiin oo Apache helicopter la yiraahdo, waxaana wacad uu ku maray in Mareykanku uu aargoosan doono. dhinaca kalena tartankii loogu jiray doorashada duqa magaalada Los Angeles, musharaxii Trump uu taageeray ee Spencer Pratt gabi ahaanba waa uu ka haray kadib markii kaalinta labaad ay ku soo baxday gabadhii Natiya Raman. waan idinla wadaagi doonaa uu ku sheegay in dambiye kala duwan maamulka Trump uu ku sheegay in ay galeen. dambiyadaasi oo ah dambiyo aad u fara badan ayaa hadda wasaaradda cadaaladdu bishii May 8 waxay ku dhawaaqday in ay doonayso in 12 qof dhalashada ay kala laabato. 12kaasi qof, 2 qof oo Soomaali ah ayaa ku jiray. mid ka mid ah waxa uu ku eedeysnaa kooxda Al-Shabaab inuu taageeray. ninkaasi oo magaciisa la yiraahdo Saalax Cusmaan Axmed oo 43 jir ah, iyo sidoo kalena Cabdallah Cusmaan Sheekh oo isagana been ka sheegay markii dhalashada Mareykanka uu helayay, isla markaana moobilkiisa lagu arkay sawiro anshaxumaha uu ka qaaday gabdha aan qaan gaarin oo aad u da'yar. labadaasi qof oo Soomaalida ayaa ku jirtay 12kii qof oo wasaaradda cadaaladdu bishii May ay sheegtay in dhalashada Mareykanka ay kala laabanayso. haddaba shalay waxaa jirta marka in wasaaradda cadaaladda Mareykanku ay ku dhawaaqday in 17 qof oo cusub dhalashada Mareykanka ay doonayso in ay kala laabato. dadkaasi 1 qof oo Soomaali ah ayaa ku jira, waxayna ka kala yimaadeen wadamada Cuba oo asal ahaan ay ka soo jeedaan Haiti, China, India, Colombia, Mexico, sidoo kalena Philippines, Congo. wadamadaasi ayay dadkaasi 17 ah ay ka soo kala jeedaan, waxayna ku eedeysan yihiin dambiye kala duwan oo qaarkood dambiyadaasi lagu helay. waxaa ka mid ah musuqmaasuq dhinaca caafimaadka, waxaa ka mid ah lacago si sharci darro ah ay u direen, waxaa sidoo kale ka mid ah in dadkaasi suuqyada saamiyada ay si qaldan u isticmaaleen, qaarkood falal galmaah oo ilmo aan qaan gaarin ayay ku eedeysan yihiin, kuwo in darooga ay ka ganacsadeen ayay ku eedeysan yihiin. marka dadkaasi dambiyadaasi kala duwan ayay ku eedeysan yihiin. laakiin ninka Soomaaliga ah oo ka mid ah 17daasi qof, isaga maxay tahay waxyaabaha lagu eedeynayo oo dowladda Mareykanka ay doonayso inay dhalashada kala laabato? waxa ay sheegtay wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka in ay doonayso in dhalashada ay kala laabato nin Soomaali Amerikaan ah kadib markii ninkaasi dhalashada Mareykanka uu si sharci darro ah uu ku helay, isla markaana musuqmaasuq uu sameeyay. ninkan 2 aqoonsi oo kala duwan ayuu isticmaalay, sidaas darteed 1990kii ayaa wadanka markii uu soo galay magac ayuu ku soo galay, uu isku dhiibay. magacaasi waa loo diiday Mareykanka in looga qaabilo, isla markaana garsoore ayaa waxa uu ku amray in wadanka laga saaro. ma uusan ka bixin muddo kadib ayuu magac kale intuu magacii bedeshay ayuu dhalashada Mareykanka uu ku qaatay. haddaba ninkan magaciisa waxaa la yiraahdaa Cabdiqaadir Cali Kadiye, waana 54 jir. ninkan waxaa hadda uu sugayaa xukun in la xukumo, maxaa yeelay sanadkii 2023 ayaa waxa uu qirtay inuu ku lug lahaa kiiskii Feeding Our Future, isla markaana waxa uu sheeganayay ninkaasi in uu lacag 1.1 milyan oo dollar ah inuu ku quudiyay 445,000 oo caruur ah, kuwaasi oo ku kala nool Minneapolis, Edinburgh iyo sidoo kalena Minnetonka. ninkan dambigiisa maadaama uu qirtay, waxaa lacagahaasi uu qaatayna uu ku isticmaalay in guri uu deganaa uu isaga bixiyo, uu iibsaday mortgage-kii, credit card-kiisa lacaga lagu lahaa inuu ku bixiyo, inuu sidoo kalena guryo ka iibsaday koonfurta Minneapolis, isla markaana sidoo kalena waxaa la sheegay ninkan inuu gawaari uu iibsaday ay ka mid ahayd Toyota Tundra oo pickup truck iyo waliba BMW oo SUV ah. hadda ninkan waa xukun suga, dambigiisa waa uu qirtay, waxaana laga yaabaa 2 sano ilaa iyo 3 sano oo xabsiya in lagu xukumo. laakiin garsooraha xukunkiisa qaabilsan ee Nancy Brassel weli ma aysan cayimin waqtiga la xukumi doono.
marka ninkan arrintaasi waa uu ku eedaysnaa laakiin tan lagu haysto oo hadda dhalashada looga laabanayo arrintaasi ma ahan sababta dhalashada loogala laabanayo waxay tahay in cabdiqaadir cali kadiye markii hore waxa uu isku dhiibay magac aan ahayn magacan uu dhalashada Mareykanka uu ku qaatay waxaana magaca uu isku dhiibay oo ahaa Liibaan Maxamuud Dagal ayuu isku dhiibay sanadkii 1999 marka garsoore immigration ayaa diiday ninkan in Mareykanka ogolaasho la siiyo inuu Mareykanka ku sii noolaado uu sii joogo isla markaana guddiga la yiraahdo Board of Immigration Appeals ayuu appeal u qaatay appealkiina waa laga diiday warranty ayaa loo soo jaray sanadkii 2001 in wadanka laga saaro laakiin cabdiqaadir cali kadiye ma uusan bixin sidaas darteed wadanka ayuu sii joogay sanadkii 2012 ayaana magaca cabdiqaadir cali kadiye waxa uu ku qaatay dhalashada Mareykanka markii marka qofku dhalashada Mareykanka uu qaato farihii laga qaadayay ayaa waxa ka soo muuqday labadii magac oo magacii oo markii hore isku dhiibay oo sharciga loogu diiday oo ahaa Liibaan Maxamuud Dagal iyo sidoo kalena magacan cusub oo hadda qaatay oo cabdiqaadir cali kadiye markaas kadib waxa la ogaaday in hal qof uu magacan uu yahay wasaaradda cadaaladda marka waxa ay sheegtay waxa uu qariyay markii hore cabdiqaadir in isagoo magac kala wata wadanka Mareykanka sharci looga diiday isla markaana lagu amray in laga saaro taasina waxay ka hor istaagaysay qofkaasi in muwaadin Mareykana uu noqdo maadaama uu qariyay markii uu dhalashada qaadanayay arrintaasi marka waxay u qalantaa in dhalashada Mareykanka lagala laabto waxa sidoo kale eedeymaha loo soo jeediyay oo wasaaradda cadaaladdu ay cabdiqaadir u soo jeedisay kamida in sanadkii 2014 mar wadanka inta uu ka baxay uu ku soo laabanayay ayaa ciidamada jooga eeraboorada ee la yiraahdo Customs and Border Patrolka oo gaar ahaan eeraboorka heer uu ku yaala magaalada Chicago ayaa ninkan istaajiyay kadibna waxa ay u soo baxay ninkan labada magac uu watay markaas darteed sargaalkii istaajiyay maadaama ninkan hadda muwaadin Mareykan uu yahay baaritaan kale ma uusan u dirin oo waa uu iska fasaxay sidaas darteed ayaa hadda waxa ay leedahay marka wasaaradda cadaaladda ninkan maadaama Mareykanka looga diiday markii hore sharci isagoo magac kala wata laguna amray wadanka inuu isaga baxo oo xitaa warranty loo jaray wadankana uu sii joogay ma aysan ahayn in dhalashada Mareykanka uu qaato sidaas darteed ayaa ninkan hadda dhalashada loogala laabanaya marka maadaama ninkan hadda dambi uu qirtay oo xukun uu sugayo kiiska Feeding Our Future lacagahaasi 1.5 milyan oo musuqmaasuqay isla markaana wuxuu lahaa hay'ad la yiraahdo Hope Healthcare Foundation oo lacagtaasi uu ku qaatay marka xukunkiisa uu dhameesto waxay noqonaysaa in wadanka laga masaafuriyo marka cabdiqaadir cali kadiye waxa uu kamid yahay 17 qof oo hadda wasaaradda cadaaladdu ay sheegtay in dambiye kala duwan ay ku eedeysan yihiin isla markaana sharciga ay kala laabanayso marka waan arki doonaa arrintaasi cabdiqaadirna halka ay ku dhamaato dhinaca kale madaxweyne Trump ayaa maanta bartiisa Truth Socialka waxa uu ku soo qoray qoraalkan uu leeyahay waxa hadda la igu wargeliyay oo militariga ugu wargeliyay in xalay dawladda Iran ay soo riday mid kamida diyaaradaha ugu casrisan helicopteriska oo aan leenahay oo Apache la yiraahdo xilli ay kormeer ku haysay marinka Hormuz isla markaana halkaasi ay kormeereysay waxaana uu sheegay in labadii pilot ee diyaaradaasi saarnayd ay bad qabaan isla markaana wax dhaawac uusan soo gaarin si kastaba ha ahaatee waxa uu yiri Mareykanku waa in sida laga maarmaanka ah ay weerarkaasi ay uga jawaabaan marka waxa uu leeyahay dawladda Mareykanku ama ciidamada Mareykanku waa inay ka jawaabaan soo riditaanka diyaaradaasi helicopterka dawladda Iran ayaana soo riday sida madaxweyne Trump uu sheegayo sidoo kale waxaa jirta in doorashooyinkii tirinta codadka ee ka socotay gobolka California dhinaca duqa magaalada Karen Bass horay ayay u soo baxday waan argeen laakiin kaalinta labaad ayaa la isku haysto Spencer Pratt oo Trump uu taageeray iyo Nithya Raman oo dawladda hoose ee Los Angeles ka tirsan ayaa isku haystay shalay waa tii laga sareeyay oo dhibca ahaan ay sinaayeen laakiin codadka laga sareeyay waxaana soo baxday in hadda kaalinta labaadba ay ku soo baxday Nithya Raman Spencer Prattna uu doorashada gabi ahaanba ka haray November doorashada dhacaysa ma ka qayb gali doono waxa tartami doona Karen Bass oo hadda maayarka magaalada Los Angeles ah iyo Nithya Raman oo dawladda hoose ka tirsan ayaa doorashada November duqa magaalada Los Angeles ku tartami doona ugu dambeyntii madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka waxaan ognahay Trump inuu xil saaray la dagaalanka musuqmaasuqa wadanka ka jira waxa maalnimadii shalay ahayd uu sheegay in gudoomiyaha gobolka Minnesota
Tim Walz iyo xeraalyaha guud ee gobolkaasi Keith Ellison wasaaradda cadaaladda kiiskooda loo wareejinayo si baaritaan loogu sameeyo maadaama uu sheegay in ay ogaayeen musuqmaasuqa ka dhacaya gobolka Minnesota midka Keith Fiedenauer Future oo $300 milyan lagu musuqmaasuqay iyo kiiska dhinaca caafimaadka ee Medicaid-ka oo $9 bilyan lagu musuqmaasuqay marka hadda gudoomiyaha gobolka Minnesota oo bishii January ee sanadkan sheegay inuusan tartami doonin iyo xeraalyaha gobolkaasi Keith Ellison labaduba waxa uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka in baaritaan wasaaradda cadaaladda ay ku sameyn doonto musuqmaasuqaasi in Minnesota ka dhacayna ay ogaayeen isla markaana aysan waxba ka qabanin